de iyaga de iyaga a wa kuma qaarkood in labada gacmood saa la yiraahdo taa macnaheed haddii aad u jilciso horta tusaalaha bixina ardayga wax fiican hadduu sameeyo galaaska haddii la joogo waa loo sacbiyaa laakiin cunuga maqalka la sacbiska ma maqlaaya sacbiskiis waa sidaas aad iyo aad baad u mahadsantahay jaamacadda Greenhope oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalka ka jira gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhaqan gelisay barashada dhinaca luqadaha marka laga yimaado luqadaha Talyaaniga, Soomaaliga iyo Carabiga waxa ay bilowday luqadda loo yaqaan luqadda tilmaamaha ama sign language dufcaddii u horeysay oo baranaysa luqadda sign language-ka ama luqadda loogu talagalay dadka dhagaha la ayaa waxa ay iminka ka soconaysaa jaamacadda Greenhope ee magaalada Muqdisho dhalinyaro kala duwan ayaa halkaas galab walba isugu timaada si ay uga qayb qaataan barashada luqadda sign language-ka luqaddan oo ah mid aalaab ay isticmaalaan dadka dhagaha la ayaa waxa ay tahay mid si cilmi ah loo baranayo iyadoo ku salaysan luqadda loo yaqaan ASL oo ah American Sign Language inkastoo beriyahan ay socdeen howlo lagu abaabulayo in luqaddaasi loo bedelo alfabetigeeda marka laga hadlayo dhinaca afka Soomaaliga haddana waxaa halkaasi ku sugan arday kala duwan oo halkaasi ku barata luqaddan loo yaqaan sign language-ka ama luqadda tilmaamaha intaas kadib waxaa ii suurto gashay inaan la kulmo macalimadda Safa Cabdulqaaliq Cali oo ah macalimadii dhigaysa casharkii ahaa sign language-ka ama luqadda tilmaamaha ugu horreyn macalin Safa ku soo dhawow TV-ga Danan waa mahadsantahay oo ku dhawaa TV Danan iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya dhammaan aad baan kaaga mahadcelinayaa luqaddan la yiraahdo sign language-ka waxaad moodaa inay aad u adag tahay marka bal sharaxaad kooban laga sii luqaddu inay tahay wax culus oo aan la baran karin iyo inay tahay wax fudud oo la baran karo horta luqad sideedaba luqad waaye dadka qaar way ku adkaa kartaa luqaddani ma la dhihi karo way wada adag tahay sababto ay tahay way jiraan dad bartay wayna wax la baran karo way tahay wax adag aan la bari karin ma aha sign language marka ma mid u qaas ah baa dadka dhagaha la bise qof walba xataa dhaga qaba ayaa baran kara luqadda qof walba baran kara sababto ay tahay dadka dhagoolada yani meel ma jirto oo dhagoolo bas wax ka wada adeega karaan bulshada wax maqlaaya jiro dadka wax maqlaayeen inay bartaan sida dadkan dhagoolada ay ula xiriiraan maxay faa'iido u leedahay marka bulshada Soomaaliyeed haddii aad fiiriso faa'iido weyn ay u tahay sababto ay tahay waxaa jira dad dhagoolo magaalada ku jiro u baahan in waxyaabaha qaarkood laga caawiyo sida adoo kale suuqa daa tagto waxyaabaha rabta inaad gorgoriso ninka dukaanka aad la hadasho ama gaari aad raacdo ama wax aad iibsato saasoo kale muhiim ugu tahay xiriirka bulshada si adkaanayo aad baad u mahadsantahay macallin haddii aan si kaftan aan u dhigo waxaan rabaa inaan ku iraado luqadda sign language waad mahadsantahay kulley Danan baan rabaa inaad ii jisho maxaan ku iraado inaad tiraado waa mahadsantahay aadaamo horta waad ka mid tahay ardayda baranaya luqadda sign language dadkaan la gudbayna waxaan la hadlaynaa dadweynaha la hadlaynaa marka aad iyo aad waxa ku weydiinaa waxaa ku dhahdaa sign language what is your name waa maxay magacaaga inaan ku dhahdo sign language macallin inaad adigu aad tiraahdaa aan ka jeclaana maadaama adigu aan ku wareysanayo inaad adigu aad samayso sign language-kaas aan doonayo sidaas okay hadda maxaan kugu dhahaa waad mahadsantahay waxaan arkayaa mararka qaarkood in labada gacmood saa la yiraahdo taa macnaheed haddii aad u jilciso horta tusaalaha bixina ardayga wax fiican hadduu sameeyo galaaska haddii la joogo waa loo sacbiyaa laakiin cunuga maqalka la sacbiska ma maqlaaya sacbiskiis waa sidaas aad iyo aad baad u mahadsantahay waa macalin Safa Cabdulqaaliq Cali oo aan ka wareysanaynay casharka la yiraahdo sign language-ka ama luqadda tilmaamaha la yiraahdo aad baan u mahadsantahay macallin sidoo kale dhammaantiin waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan goobta kula kulmay maxamed qadar cabdulcasiis
oo ka mid ah ardayda baranaysa sign language-ka isaguna bal waxa uu inoo sharaxayaa luqaddaas iyo wixii uu ka faa'iidaystay iyo ilaa iminka fikirkiis waxa uu ka qabo maxamed ku soo dhawow awalan barnaamijka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ آدم ودوهي أذيك يا دمان بهذا دنن تي في راديو طبعا بهذا دنن ميديا جودهان وحن أقوم هاد علينا دور كذا وناكسن كؤادن حد موضوعي الرمي بالشاة مركز تاجنو بالشدة واحتر أوله إن كاميرا دلالة دونتو بالشدة الله صوب النجوح كجرا ديجان كمركز أنجوجنا وجوه الرئيس مجال العاصمة ده سيد آدم وما حسنت هاي طبعا أرضية جلاس كبينك دمانتين كودا مدنا هاي أرنت تن لوقت على مدها أمسان لانكويش كه طبعا واللغات كمدة اللغات كعالمية الدنيا ذا كجرا قلوا والبنا وحي أصلا ما يستا أستعمله ذا جاركة وحاجرت أمريكان سان لانكويش بريتش سان لانكويج كينيا سان لانكويج لكن نصيب درو بربرك الدولة دلك جاري درتت ولي لما حقيقين هدف كأه إن لسمي الصومالي سان لانكويج مرك ميت كحدا إنه دجانينه وميت كان الدنيا ده وقع عن سنة اللي يراده ASL American Sign Language إلا حدنا وحنا كفائدة السنة وحبضن أو إنه ما أنتوا لحرير كرنه ضدك باهذا مقهى كقباء إنه قلنا الدجان كان عاصمة ده يجود هندلك ugu dambeyntii maadaama aad ka mid tahay ardayda barata maxamedow luqaddan sign language-ka maxaad 2-3 aad tusi kartaa yani wixii meesha aad ka baratay adigoo example ama tusaalooyin ka bixinaya waa maadsantahay oo kala dhihi kartaa soo dhawow kala aabbaad dhihi kartaa casharadii aad qaateen cashar ka mid ah أستاذ آدم واد mahadsantahay runtii waxaa xus iyo xusuus mudan in hadda daraasada ay gabagabad tahay waxaan rabaa inaanan iloobin marnaba aan u mahad celiyo ururka dhagoolayaasha qaranka Soomaaliyeed ee Sonad uu madax u yahay Ustaad Muuse Xasan Kadle iyo labadeena macallin Firdawsa Cabdullaahi Faarax iyo Doctoraysa Safa Cabdul Khaliq Cali oo dabcan waraysiga iga horeysay waxa inaan iraad macallimiin waa mahadsantihiin cashir ay adagta in qof walba uu bixiyo ayaad bixiseen annagu arday ahaan galaasku waa balaaran yahay wax badan ayaynu ka faa'iideysan aadaamo sida la socoto anigu shakhsiyan wax badan baan ka bartay oo waxaan ka mid ahay dadka inta badan la macaamila ama ay soo marta maalintooda shaqada ah dad maqalka naafaka ah marka wax badan baan ka bartay qof walba oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah waxaan leeyahay galaasyada kala duwan ee magaalada ka socdo in uu ka faa'iideysto annagu mar kale waxaan mahad celinaa Allah subhanahu wa ta'ala ururka Sonad ee jaamacadda Green Hope oo bixisay deegaankii tacliinta ama fasaladii lagu qaadanayay marka aadamo luqaddu waa ballaaran tahay waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay waxaan rabaa dhinaca numberska oo aad u adag inta badan inaan bal dadka u yara tilmaamo numberska marka laga hadlo luqadda sign language-ka sambal ahaan waa tirada dabcan sign numbers la yiraahdaa ama luqadda calaamadaha qaybteeda numberska ah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa mahadsantahay aadaamo adiga mudan waa hagaag daawadayaal intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa luqadda loo yaqaano sign language-ka ama luqadda tilmaamaha oo ka socota jaamacadda Green Hope ee magaalada Muqdisho halkaasoo arday kala duwan ay ku bartaan luqadda loo yaqaan sign language-ka barnaamij la mid ah intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet